daysane ciyaar xiiso badan ayaa maanta dhacday oo dhex martay Manchester United iyo Liverpool iyadoo United ay away ahayd oo ay ku ciyaaraysay guriga Liverpool. ciyaartaasi waxay ku dhamaatay 2-1. bal ciyaartaasi haddii aad taxliiliso ka qabiir ahaan siday kula muuqatay maanta? runtii horta ciyaar aad u fiican ay ahayd oo labada dhinac weerar weel celina ilaa ay 19 mar camal Liverpool goolka way toogatay, laakiin Man United macalinkooda Amoron shax ayuu la yimid oo aad u adag oo inta badan waa la soconaa 3 dambe 4-2-1 ku ciyaari jiray. tii laakiin maanta inay shaqaysaa u malaysaa oo gadaal wuxuu dhigay Delete iyo Maguire iyo ciyaaryahankan Luke Shaw ayuu dhigay. wuxuu kor saaray Diego Dalot iyo ciyaaryahanka Amad Diallo kor saaray. Amad Diallo wuxuu ku fiicnay waa ciyaaryahan weerara laakiin wuxuu caawinayay difaaca. taasna waxay keentay markay socotaba 2 daqiiqo inay gool dhaliyaan kubad markii la siiyay inuu meel fiican Mumba u dhigo asna kubadda oo si fiican goolahayaha uu kor qaaday inkastoo cajirkiisa ay ku dhacday ay qaybtii hore gool helaan. kooxdana inta badan oo difaac ku soo tala gashay haddii qaybtii hore gool ka hesho culayska oo sii kordhay. Liverpool culayska ku sii kordhay, weerar isku dayday, gadaala loo fadhiistay, weer celina la ciyaaray. qaybtii hore marka Casemiro horta ma soo baxaynba. waxa kaliya weerarka soo raacay waxa u badnaay wiilkan yaro ama Diallo ayaa soo raacay oo Kunia iyo ciyaaryahankan kale waxaana la soconaana Benjamin Sesko inuu ka tagay. sababta uga tagana waxay ahayd inuu dhexda buuxsado oo aad u cadaadiyay inay kubad soo wadaan oo u diido. tiina wuu u diiday qaybta hore oo Liverpool kubadaha geesaha kaliya u dhiibayeen. Salah iyo ciyaaryahankan Gabona aad loo hayo waxa loo diiday inay kubada geesaha ay ka keenaan oo Salah Diego Dalot kor saarnay aad u hayo Gabona saasoo kale aad looga hayo. marka wiilkan Liverpool oo Man City u dheelayo oo aan ku sheegay ama Diallo aad u fudud wuxuu ka awood badnaay karkiis oo uu marayay ama kubada uu ka soo dhigayay Mumbana uu agtaagnay. dhinacaasna waxaa la rabaa hadduu soo galo Van Dijk inuu ilaaliyo. dhinaca kale Ibrahim Konate ayaa Bradley oo numberka 2 Liverpool uga dheelayay haddii laga soo galo ilaalinay. dhinacaas dhibaato maysan ka qabin Liverpool laakiin weer celinta badana dhinacan midigta ay ka imaanaysa. marka isku soo duubto markee falsafadii tababaraha kooxda Manchester United maantay ma waxaa la dhihi karaa way hirgashay oo waa shaqaysay balse farsamooyinkiisii hore ayuu wax ka bedelay? runtii wuxuu ka bedela male laakiin kooxdii waxaa u malaysaa inay isla qabsatay oo sideedaba Salmin markaa maqasho waxa difaac lagu yaqaan 2 qof ama 1 qof kaliya ma samayso. kooxdoo dhan ayaa difaaca ka wada shaqayso xataa goolahayaha ku jiro oo goolahayadooda maanta xataa kubadaha 9 koon ayay heleen. hal kamid hal maray qalqal ku galiyeen oo Gabo kubad saacadii ugu dambeeyay madaxu ku helo banaanka iska marsi. laakiin inta badan waxay iska soo bixiyaan iyo wax goolahayaha qabsadeen. marka si wada jir ay wax u difaacayeen si wada jirna way weerareen oo difaaca Man United ma soo baxin kubad markay qabsadaan oo iska dheereynayeen taas ayay ku ciyaareen. laakiin daqiiqadii ugu dambeysay oo 15 daqiiqo ugu dambeysay waxa u malaysaa in culays xoog in la soo saaray taasoo United inkastoo culays xoog la soo saaray barbardhac laga keenay Gabo goolka dhaliyay haddana waxa u malaysaa inay u adkeysanayeen ay aad iskaga ilaaleen ayagana ciyaartoy cusub ay meesha soo geliyeen. inkastoo ciyaaryahankii Doku numberka 3 ka dheelay markii la keenay inuu weerar qaadayo taasna ay u fududeynaysay Salah iyo bagartay. markaad fiiriso fursadaha labada kooxood xagga maaragtay fursadaha ay ku tooganayeen goolasha kuwa qasaaray kuwa laga qabtay marka la yiraahdo yani maaragtay touch boxka ama xariijinta 18aad dhexdeeda yani maaragtay banuuniga oo lala galo ama markaasi lagu haysto ama lagu xirfadeeyo yaa is leedahay maanta way ku fircoonayeen labada kooxood? Liverpool ku fircooneed oo Liverpool saan ku sheegay qaybtii dambe weerarkooda kala joogsi ma lahayn oo Ekitike la keenay, Florian Visa la keenay, ciyaaryahanka Chiesa la keenay Talyaaniga, ciyaaryahano badan oo weerar ku soo guray. Szoboszlai oo numberka 2 oo geeyay wuu ka soo bixiyay 8 uu soo celiyay oo 6 amal uu ka dhigay. wuxuu keenay Frenberg oo keenay oo numberka 2 ka dheelay oo goolka madaxa oo Gabo cunay asaas soo galay. marka Man United halis ay ku jirto mar daqiiqada ka dambayso culays xoog la lagu hayo laakiin ayagana waxay ku ficnaayeen difaacooda ayaa maanta aad u adkaay oo waxaan u jeednaa Kunia Sesko
oo nambarka sagaalaad xarqin 18 kor taagnay waxba u difaacay marka difaac adag oo weer celin la ay inkastoo 15 daba u dambeysay ay weer celintooda aysan fiicnayn haddana si la yaab la ay maanta isu difaaceen United ma la dhihi karaa markaasi way soo noqotay marka loo fiiriyo kaalinta ay kaga jirto kala horeynta kooxaha Premier League ciyaarta ay maanta iyada oo gurigeedii kula ciyaaraysa Liverpool ay kaga guuleysatay maxay kaga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay moral ahaan ay soo kaceen 13 dhibic ay yimideen kooxda horyaalka hogaaminaysana 6 dhibic ay dheertaa oo meel weyn kama jirto waa laba ciyaar laakiin su'aasha waxay ka taagan tahay sida uu sheegtay maanta difaaca ay gashay iyo warcelinta uu ku soo talagalay ninkan sababta qorshaha uu la yimid suurtagal uma ahayn Liverpool inuu cagta u saaro oo haddii uu ku imaalayo cagta inuu u saaro guuldarro la tagi lahaa oo niman badan oo weerar doo maray imaaleed niman badan oo weerar oo si fudud ku maraya meesha joogay marka difaaca uu haystana Delete iyo Maguire iyo ciyaaryahanka Luke Shaw niman orod lama oo waxa loo yaqaan Highlandka hore haday yimaadeen niman orod la waay oo Salah iyo Gabo iyo ciyaaryahankan kale Isaac oo joogeen marka si fudud ay ku mari lahayn laakiin waxay sameeyeen inay is aruursadaan ay isku dhawaadaan oo mid dii la mar midka kale oo meesha uu joogo kadibna waa raacin sidii ku shaqeeyay laakiin su'aashu waxay ka taagan tahay gurigooda markii Man United la yimaado oo Brighton la dheeli doonaan ciyaar ugu xigto Brighton markii la dheelayaan Brighton laftigeeda kooxaha kubadaha fiican dheela ayay ku jirtaa aad iyo aad u fiican oo usbuuci dhawaay laba ayay ku soo adkaatay oo u dhaliyay ciyaaryahankii Chelsea u dheeli jiray marka su'aashu waxay ka taagan tahay gurigooda joogaan sidii maanta may sameey doonaan mase weerar ay soo qaadi doonaan ilaa gurigaada joogto ana weerar waxay kula tahay marka waxay sameey doonaan ana waxay ila tahay inay dhibaato ku noqon doonto sababtoo tusaale marka ka soo qaadno kooxda Tottenham banaanka markay u soo baxay City soo garaacday banaanka guulay ka keentay gurigooda maanta Villa uga adkaatay sababtoo gurigaada marka joogto adaa gurigaada joogto ana wax weerarta marka weerarto ay soo balaarinay nidaam ku dheeshana maaha marka waa in adiga lagu daba maraya gool laga dhaliya marka Manchester runtii waxaan isleeyahay moral ahaan kooxaha waaweyn maanta wuxuu tusay inuu isdifaaci karo laakiin waxaa la rabaa gurigiisana markuu joogo in uu kooxaha oo weerari karo uu joogtay guusha maanta uu gaaray waayahay Liverpool haddaan u nimaadno guul darrada maanta waa tii afraad marka lagu daro ciyaar Champions League oo horey looga soo badiyay marka bal Liverpool xagee laga haystaa أنا سان إسلام ليفربول أرتوين رهان أدي أدو في عن تهاي لحدودنا وفي عن هاي لكن أنا وحن إسلام هاي وحامقا وذا الشقين تقول أو سي وحود الدفاع له أو قول كذا لقد لي أو لبعض مدح اللو قد لي مدحنا هالقف كلي وحمد دفاع أو تيم كنا على الرباع إنه الدفاع قول كواد لفت جيسة أو أمد أو دقاء مومبا أو كذا لي ميسن جوجنين أو كبد دقدقوا الوجوب بسي عيان مركز لما إيه كرو إبراهيم كوناتي حماي Van Dijk liitay garbaha liitay waa team waxa u malaysaa wada jirkii wax ku difaaci jireen inay maqan tahay oo kubadda markii weerar qaadaan laga soo gooyo in nimankii weerarka Salah iyo Isaac iyo inaysan si degdeg ay ku soo naqaneen kubadda degdeg ay ku soo dhacsaneen oo waxa la rabaa markii kubadda aad dhumisid ina isla markii aad soo cesho Isaaq ayaa soo hadal qaaday ma isleedahay kooxda uu la qabsaday qaab ciyaareedkeeda hankii weynaa ee looga fadhiyay markii la soo iibsanayay wuu buuxiyay ama wuu ku socdaa qaabkii uu ku buuxin lahaa أنا مؤمنين قابكي إنه كبوحين لصوت نيوكاسل أسامش وحكاية ستارك وكبدا مركي قبصدان أسيل الرادي جرين حد بهن أسيل الرادي حدقة بدنا جو تاسا وحي كينيسا إنه قيبتي هورا فرصة بدن هل فرصة وهلي ولو دايو لقطة قولايا أوعلي هسي شيء مركي دنبع أنا وضع على كتاغو أوف سايد وايا بلده أسيل دنبع اللو مجين تاسو حكيني إن ويرركا كبدا بدن على الرادين صوتو هالانو كله oo ciyaar City asiga la raadiyaa kubadaha waxay ogyiin hadii la si inuu wax dhalanayo oo inuu yahay xidigooda laakiin ninka xidig ma Salah jooga jooga Gabo joogo Ekitike jooga Florian Visa joogo marka Liverpool waagi hore waxa xidig u ahay Salah hadda niman badan oo xidigahayn marka iyo xidig naqadoona lama ogo waa gartay marka fiiriso marka bal Liverpool hadda waxay u muuqataa in hogaankii ay hoos uga dhacday marka ma isleedahay hoos u dhacaas Arsenal way ka faa'iideysan doontaa runtii hoos u dhaca ku yimid Arsenal kalima kooxaha dhan ayaa ka wada faa'iideysanaya oo Liverpool dib u dhacan ku sii dhacayo waxa u maleeyaa in kooxaha kale ay faa'iido u tahay
arkayaanna in liverpool layska celi karo oo weera celin wax looga qaadi karo oo difaacooda gool laga dhalo afarta cayaarbo hal iyo eber looga badiyo 2-1 looga badiyo goolal aad u yar aa looga badanaa koox ilaa hadda 2-1 ku garaacday tira 2 goola ma jirto marka way dhadhow yihiin saalimiin aad iyo aad u mahadsan tahay barnaamijka ayaa la qayb qaadatay